kulanti wacan oo wanaagsan halkaad iga daawanaysiin waa channelkayga Queen Dunia. Kusoo dhawaada fiidiyo kala duwan oo iskugu jiro kuwa fashion, kuwa ka hadlaya xagga healthiga, kuwa asxaabta kale. So fiidiyan maanta wuxuu ka hadlayaa arrimo ku saabsan lamaanihii beryahan oo dhan zaid ku haystay TikTok-ka ama YouTube-ka. So lamaanahani mid kamid ah baa safrayo. Arrinta cusub oo kusoo korodhay waxay tahay lamaanihii laba iskula soo fadhiisan jiray aan horey u arki jirnay hadda waxay noqonayaan midkood. Fiidiyahan aan idin soo qaatay oo idin soo hordhacay waxaa waaye fiidiyo ay hore iskaga duubeen inshallah intii kale hadalkii iyo waxyaabihii ay soo gudbiyeen walaalaha ama ay noo sheegeen inay safar ay tahay Sumaya waa qofka safrayso. Tani waxaa waa fiidiyahan wuxuu kamid yahay damaashaadkii ay soo wada qaateen iyo waqtigii wacnaa isla soo qaateen ayada iyo xaajigeeda. Licato waxaa waaye iyo balamaadyo badan uu noo sameeyay Licato asagoo sheegaya inuu dib u tagi doono ama dib u booqan doono wadankii hooye uu hore ugu baaqday safarkiisa uu hadeer ka dhigi doono meelaha ugu muhiimsan oo priority ah uu safar u tagi doono. So intaan waxaa waaye dib u xasuusin waqtiyadii wacnaa isla soo qaateen lamaanaha. Fiidiyahan waa mar isla soo fadhiisteen Sumaya iyo Liibaan ama Licato iyo Sumaya ayagoo sheegayaan arrimo kusoo kordhay iyo degdegii safarka ahaa ee soo wajahay maalinta Jimcaha. Marka qofka safrayo waa Sumaya, Liigu joogaa. Waxaan leenahay noo soo dhawow kulay Kenya isla joognaa. Hadee Sumaya ayadana dumaashadeen waxaan leenahay Ilaah ku nabadgeeyo. Safarkeedii aad buu dheeryahay sidii haddana waqtigii ay jaratay ka hor bay baxaysaa sidoo asagaba noo sheegay. So waxaa waaye baleenkii mahane baleen kale ayaa imaaday emergency ah Allah sahla amuuraha. So hadeer waxay inoo sheegayaan ama ay ka baqayaan ama ay rabeen inay soo bandhigeen inay safarkaas uu soo kordhay abaayana ay safrayso ama dumaashi. So Lii waxaan leeyahay asagana soo dhawow sida aad sheegtay ama balan qaaday inaad wadanka hooyo dib u booqan doontid asagoo balantaas qaadayo kulay waa idin soo gelinayaa codkiisa markuu balan qaadayo. Sidoo kale waqtiyadii wacnaa iyo farxadii wuxuu 3 bilood bay isla wada joogeen. Xitaa 3 bil ma dhama sidii uu sheegay 3 bil bay ahayd inay wada joogaan laakiin safarkeedii ayaa kasoo hormaray oo soo degdegay. So sidaas bay ku laabanaysaa Sumaya. Haddana waxaa waaye waxaan idin sii fasaxayaa codkoodii iyo sheekadoodii iyo waqtigii ayaga soo wada qaateen iyo waxay ku faraxsan yihiin iyo sidii ay wax u dhaceen kulay dib baad ka maqli doontiin. Waxaan idin leeyahay soo dhawaada walaalaha nagu xiran iyo walaalihii kale. Sidoo kale waxaan leeyahay channelku waa channelkiina like saara subscribe saara waxyaabo badan baan idin soo gudbinayaa idinkana aad ka faa'iidi doontiin oo kala duwan. aad baan u mahadsantiin la joogiina mar labaad mar saddexaad. Kelinimada iga bilaabatay aan u wareegaya gacanta ku soo dhigay oo aan soo waday oo halkan aan keenay haddana isla meeshina kaaga tago meeshina iga tagtid ayadoo waliba fasaxii ay soo qaadatay 3 bilood ayadoo la gaarin. taas waxay ugu dhalaysay murug aad u weyn. Sumayna waxay ku dhalaysay murug aad u weyn. labadan bari xitaa social media wax uga maqneen arrintaas ayaa jirtay markii laga soo gudbiyay prank iyo wax la sameeyo. laakiin aniga ayada mugtaas noo imaaday laakiin qalbiyan wax ayada muhiim u ah aad muhiim ugu ah oo emergency ayaa u soo dhacay. That's why ayaa halkan uga baxaysaa. sidoo kale halkan tikidkeeda ma in qofka tikid weyn uu soo jarto wadankii markaas bilow uu imaaday hadduu ka tago uu ka bedelan karaa. Ethiopia tikidkeedii ahaa etana Turkiga xitaa markaa tagay xitaa u bedelnay. haddana Nairobi ismaan lahayn because ma aaminsanay Nairobi hadda tagtid waa kala hari doontiin. waa dhacday على كل حال تيجي ولا بدلي أرنتها سماتي ولا ونيا أدينا ماشي سنجلنا ما كبرنا كاجا تيجي ماشي سنجلنا ما كبرنا والله سمي حاسس حتى بحنا لكن أرين كلو فرحت بدن أيضا هذه سمية أو أن مركز إثيوبيا جوي أن أصل فحيتي إن المقدسة أن هذا سمية سبرايس يوتي ما ذي إثيوبيا وأن كلابت وأن تركي أن هذا مقدسة waxay diyaarinayeen soo dhaweynta ilaa waagi I know 6 bilood ka hor 4 bilood ka hor ee soo dhaweynta diyaarinayeen waxaan balan qaadayaa maadaama
sumayo si kadis ah ay ku laabanayso habeen dambe Friday ay laabanayso insha Allah du'aab inuu aniga waxaan go'aansaday inaan aan Turkiga aadin Nairobi waxay igu xigi doonto Muqdisho warkii waa cadiya yes ee Muqdisho anoo saas u socdo day soo galaa because meel kale aan isku mashquulay markaan ma lahan idinka ahayn beentina ka dhamaatay beentina ay dhamaatay waa idin wareeriyay saa idin dhahay idin badhiga kara xaaska soo socoto waagas aniga excuse hada ma noqonay cuz aniga already waan laaban rabaa hadda bixi rabaa hadda ana idin la reemo Muqdisho hadda idin imaan waayo soo garaaca ma hadda horta TikTok garaacan ma hadda mi garaaci karaan hadda waxay ku faraxsan ninka odayo noqday laba been sheegtay iska amsan maya dhalinyarnimadu ka baxay leeyahay dhalinyarnimadu ka baxay maadaama qoftiisi 4 sano ee ka maqneed ee u imaanaysay inuu laabto oo san noo imaan way qurux badan tahay because markaas ayaga waqti kaliya isku helayna ha laakiin been badan dahwadii maana laakiin hadda wad aadaysaa balanta ugu dambeysay waa haddana adoo ay fasaxnaan dhabarkii uga darbaaxay markii dhabarkii uga darbaaxay way fasaxdaan orcad waay adoo aabin insha Allah reemo ani markii hore ma ku diiday markii hore imaad diideen laakiin Muqdisho ogta wax aan iska jiro maana adi xitaa ma aniga waliga xataa Muqdisho ma ku diideen ma ima diidi kartid laakiin xataa hadla xataa ma ka keenin cabsi la koo keeso maana cabsi xataa ma inay haynin maxaan ku dhahay bilahay marka aga dhaafay saxan ku sheegay markii Ethiopia niman maxaan ku dhahay Muqdisho ma soo arkana ma ku dhiino soo arkana dhahay ani maxaa ku dhahay laakiin ani nasiib ma u yeelin laakiin hadda asal nasiib idin yeeshin maado aad marka waxaa idin leenahay Soomaali Maxamed meel kasta doonta ka joogtiin waa idin jecelnahay nolosha marna waa farxad marna waa murug ani ayada hadda ma aaminsan ma igu soo dhacay kula horta ma aaminsan in ani hadda ka Nairobi ku xari doono ma aaminsaneyn laakiin anigana sidoo kale ma aaminsaneyn inaga waxa aaminsanahay qadartii Ilaahay ka weyn marka si fiican marka wax kale ma jiraan sidoo kale waxa arkay committee farabadan oo lagu soo qoray Cannaan channelkiis markii brankiga lagu sameeyay Ilaahay khayr ha ka dhigo saasaan dhahayna Ilaahay khayr ha ka dhigo Ilaahay khayr ha ka dhigo Sumayn u soo duceeya waxa shalay igu camirinay markii la maqlay inay Sumayn laabanayso walaalkay Jamaal iyo walaalkay Cadaan oo la ku soo dhawow nolosha singalnimada ay la boodboodeen u faant anigana xooga aad u yar murugay because of man jacayl in garabkay ka dhaqaaqdo waxaan jeclaa waqtigii dheeraa 3 bilood ee soo qaadatay oo iska yaraa inaan isla wada joogno si qurux badan oo wada qaadano waliba wadamo badan taas ugu dalxiisan aan tagno ilaa Muqdisho laakiin way dhici weysay marka waxa idin leeyahay insha Allah habeen dambe waxay noqon doontaa habeenkii iigu murugta badneed marka imanayna ay noqon doontaa marka imaanayso waxay habeenkii ugu farxadda badneed meerka dhacayna markii mas'uuliyadii ugu weyneed awid aan qaaday mas'uuliyadii markaas ooynaysayba markaas waxa la oonaa mas'uuliyad aad u weyn iyo farxad isku jirta marka maxaa leedahay hadda asxaabtan zaid ku jeceliin aniga dhamaantiin waa idin jeclahay wax kale xataa ma lagu maqnayn arintaas liiba idin sheegan rumaay laakiin aniga wax badan ma maqnaanay waan soo laabanaya aniga uma jeclaa asagana ka tago laakiin macquul way noqon weyday markastana wax isku dheeli tiran lama helabo soo farxadda haafada ku dhawaad haafka kale inaan soo celiyo isku dayaa soo laabana wato insha Allah maxay ahayd liibaan Muqdisho igu hor aadaya taas laakiin waan ka xumahay because anaa rabay inaan soo arko si fiican baado joogan ku imaana insha Allah haduu eebino waxa idin leeyahay soo duceeya waana mahadsantiin I love you kuleysa arkaysiin hadaladii uu sheegay Sumaya iyo Liicate ay wada sheegeen waa intaas soo waadna ka wada bogateen asxaabta waxaan leeyahay soo insha Allah aan isku xirnaano gabdheelka furta subscribe saara channelka waa channelkeena hadee soo dhawaada Soomaaliya meel walba joogtiin in lamaanaha qarnigana waa ka fariinta idin soo direen waxaan leeyahay insha Allah safar salaama tumaashay adigana